kuma tashan balse tiirba ayaa meel taale dagaal iyo fawdo tuuri u badneed oo ka socotay banaanka dukaankiisa ayuu damcay inuu u baxo oo la hadlo hase ahaatee markii uu banaanka dukaanka yimid ayaa la u naxariistay muwaadinka Soomaaliyeed ee la dilay waxa ay ismuran iyo gacan dhaafeen mid kamida dhalinyarada fawdada ka waday eeriyada iyadoo kama dambeena Cabdullaahi lagu dhuftay dhowr meelna laga duleeliyay oo kaga dhacday mindi ama toorey taasoo sababtay in durbadiiba loola cararo isbeddelka deegaanka oo xalay kama dambe saqdi dhexe u geeriyooday Allah u naxariistay Worcester waxa ay 100 kiiloomitir u jirtaa magaalo xeebadka Cape dalkan Koonfur Afrika waana mid kamida deegaanada ugu nabdoon ay Soomaalida South Africa ku nool yihiin kuna nabad qabaan booliiska deegaanka oo si weyn ula shaqeeya jaaliyada ayaa waxa ay sheegeen inay aqoonsadeen dhagar qabaha dhibaatada geystay isla markaana waxa ay sheegeen inay ku raad joogaan oo ay gurigiisa iyo hareerihiisaba ay ku gadaaman yihiin haddaba waa kan Shaafic Macalin Untrow oo kamida dhalinyarada deegaanka si weyn ay isku yaqiineen walaalka geeriyooday ehel iyo asxaabna ay haayeen ayaa waxa uu inoo sharaxayaa sida ay wax u dhaceen xalay oo uu u geeriyooday walaalkeen Cabdullaahi iyo waxa uu ka bilowday dagaalka markii koobaad عليكم وعليكم السلام يا دمان بعد سرير سود أفريقيا وحالة جيريودي الله ونحرسته سمري من على نقصي ولكن عبد الله يوسف ولو يقانا بنكم وحنا كلنتي وستم وحنا لو دفتي مدي داس او غدا يو كلنتي وحنا كل روح بحي اسبيتال كوي وين وستم dagaalkan wuxuu ka bilowday markii hore dhalinyaro toore bilowday toorada markay bilaabeen dukaanka banaankiisa oo baxay markoo banaanka oo u baxay dagaalkiyaas daraadid ay mid kula dhufteen markii maana wax hada dhac ama boob wax kale taa ma jirin midida markay ku dhacday isbitaal baa loola cararay isbitaalkana ku geeriyooday xalay markay ahayd 5 saac iyo bar oo dhintay walaalkeen Cabdullaahi Allah naxariiso سمريمان على نقصي دمانتينه ما أنت ولا دوغا سدل أي شيء إن كست أي تا holiday